Bismillahirrahmanirrahiim. Kulan wanaagsan ciyaarta nala socota meel kasta oo aad joogtaan. Maxaa ka cusub bariga dhexe xilligan? Dagaalka u dhexeeya dowladda Iiraan iyo sidoo kale nidaamka Israa'iil xaggee wax marayaan. Tallaabooyin waaweyn ayaa tibinteennii hore kadib soo kordhay, xaaladuna waa ay sii ballaaratay. Gurigii Netanyahu qoyskiisa uu deganaa gantaal ayaa lagu dhuftay. Waxaa sidoo kale la weeraray xaruntii korontada ee Israa'iil ugu weyneed ee Tel Aviv. dhinaca kale Iiraan waxa ay ku dhawaaqday xaalad dhammaystiran oo dagaal ah, waxaana la amray dadka in ay joojiyaan isku imaatinka iyo goobaha dadweynaha. Dowladda inta badan waxa ay dusha u ridatay adeegyadii la bixinayay iyadoo shirkadihii iyo weliba ganacsiyadii albaabada loo laabay. Goobo dhulka hoostiisa ah iyo marino ammaan ah oo ay ka mid tahay xarunta tareenada ee dhulka hoostiisa marta ee magaalada Tahraan ayaa la yidhi dadka iska xaadiraya biyaha iyo cunnada iyo raashinkana dowladda ayaa la wareegtay. Maxaa arrintaa ka soo kordhay waan kula wadaagi doonaa. Arrinta kale oo la yaab kale waxaa ka mid ah dunida indhaha ayay ku haysaa dagaaladaasi in ay sii socdaan. Weliba waxaa la leeyahay xaaladdu hadday sidan sii ahaato waxba lagama qaban kara hadda, waxayna u muuqataa dagaal ballaaran oo shaamil ah ayaa la galay oo xaaladdu waa kulushahay hadda. Intaa waxaa dheer dowladda Pakistan guddiga sare ee amniga ayaa kulmay. Waxay yidhaahdeen dulqaadkii waa naga dhammaaday, xaaladdu hadday sidan sii ahaatane si dhab ah oo dhammaystiran ayaan Iiraan isku garab taagaynaa. Waa dalkii ugu horreeyay oo nuclear ku hubaysan oo Israa'iil si cad uga soo horjeestay. Talow Iiraan ma nuclear ayay ridi doontaa? Qodobadaas ayaan dul istaagi doonaa saaxiibayaal iyo weliba wararka ugu dambeeya ee hadda qaybo ka mid ah Iiraan oo duqaymay ka socdaan. Diyaaradaha Israa'iil oo marin ay maraan la kadib markii raadeerada dhinacan Iiraan ay bilaabeen inay iska caabin xooggan sameeyaan. Aad baad u mahadsantihiin, waa Barrow Show iyo taxanaha maanta iyo dagaalka. Aad baad u mahadsantihiin, subscribe saara YouTube channelkeena, muuqaalkana saaxiibadiin la wadaaga. Soo dhawaada mar kale. Haddii aan ku horeeyo xaaladda dagaalka, bariga dhexe waxa uu hadda u eg yahay mid guban doona. oo dagaalka ayaa sii baahaya. Iiraanna si rasmi ah ayay ugu dhawaaqday dagaalku inuu noqday mid dhammaystiran oo wixii hadda ka dambeeya aanay ciyaar noqon doonin. Haddaba maxaa dhacay? Waxaa la magacaabay guddi dagaal oo la yidhi dagaalka raggan ayaa farsamayn doona. Waa saraakiil amni ah iyo weliba jenaraallo gaamuray, kuwaasi oo dejin doona kaartooyinka dagaalka, meelaha istiraatiijiga ah ee la weerari doono, iyo sida ay wax u socon doonaan baa iyaga qaabaynaya. Intaa waxaa ka sarreeya guddi kale oo guddiga dagaalka la yidhaahdo ayaa la magacaabay, ama guddiga howlgelinta dagaalka, kuwaasi oo iyana hagi doona siyaasadda dagaalka iyo waxa laga yeelayo. Intaasi markii ay dhacday kadib waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday Iiraan in albaabada loo laabay, ganacsiyada dadkana aanay iman karin bannaanka, oo la yareeyo isku socodka suuqyada iyo weliba isdhexyaaca. Gaadiidka ayaa istaagi doona. Dowladda ayaa la wareegi doonta wixii shaqo ah hadda kadib. Ambalaasyada qaranka ay Iiraan ayaa shaqaynaya oo ma jiraan gaadiid kale oo iska soconaya. Duqaynta waxay u muuqataa mid aan runtii sahlanayn oo meel kasta ayay gantaaladu ku dhacayaan. Labada dhinacna hadda waxaad moodaa in ay dheelitiran tahay weeraradu uu dhinacna uusan ku gacan sarrayn, iyadoo maanta sidaa la socoteen qaybo ka mid a galbeedka Dahraan iyo sidoo kale magaalada Isfahaan iyo qaybo kale oo ka mid a gudaha dalka Iiraan ay gantaalo ku socdeen. Waxaa la isweydiinayay Iiraan talow maxay ku jawaabi doontaa. Intaa wixii ka dambeeyey Ayatollah Cali Khamenei ayaa wasiirkiisa gaashaandhigga ku yidhi dadka la hadal oo waxaad ku tiraahdaa xaalad dagaal oo dhammaystiran ayaa la galay. Xaalad dagaal oo dhammaystiran ayaa la galay. Intaa wixii ka dambeeya Iiraan waxa ay qaaday tallaabooyin la yaab leh. Sawaariikh ayay ku jihaysa dhinaca Israa'iil. Qaybo ka mid a guryaha qoyska Netanyahu ayuu gantaal ku dhacay. Lama soo sheegin khasaaraha ilaa iyo hadda. Maxadada korontada ama xarunta quwadda korontada ee Iiraan aan idhaahday Israa'iil ayaa iyana gantaal kale oo xoog leh la soo warinayaa inuu ku dhacay. Lama soo sheegin khasaaraha halkaasi ka dhashay, laakiin Israa'iil waxaa la xaqiijinayaa inay la tacaalayso dhibaatooyinka weeraradaasi ay keeneen. Intaa kadib Netanyahu ayaa warbaahinta u sheegay in Iiraan ay ka jawaabayaan waxa ay geysatay
cawaaqibkana uu noqon doono mid xanuun badan oo aan la isku hallaynayn kalow wixii hore la samaynayay wax oo ciyaar ciyaara miyay ahaayeen su'aalaha la isweydiinayo. Dhinaca kale dadka waxaa loo sheegay waa Iiraane inay galaan meelaha lagu badbaadayo ee dhulka hoostiisa ah si gaara xarunta tareenada ee magaalada Dahraan oo metro ah oo dhulka hoostiisa tareenada mara ayaa la yidhi hala iska xaadiriyo goobtaasi biyaha raashinka dawada iyo cisbitaallo dheeraada xarumo laga dhigay ayay dowladdu diyaarisay oo Iiraan markan waxa ay si rasmi ah u rabtaa dadkeeda inay badbaadsato inta dagaaladu ay sii socdaan. isla wararka Iiraan ka imaanaya waxa ay tilmaamayaan sida telefishinka Al Arabi uu goordhow baahiyey in dagaalada iyo weerarada ay adeegsanayaan Israa'iil ee gudaha Iiraan xaaladii iyo wejigiisii la bedelay. gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa ayaa la sheegay in la adeegsaday oo meel lagu qarxiyo taas oo aan khasaaraha la soo warin. hase ahaatee Iiraan mushkiladda ugu weyn ee haysata iyo la tacaalidda ugu badan ee hadda ay indhaha ku haysa waxaa ka mid ah sidii basaasiinta Mossad u shaqeeya ee gudaha waddankooda ku jira ay xal uga keeni lahaayeen. basaasiin fara badan ayaa la sheegayaa inay lagu dhex beeray gudaha Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan. taasina waa midda keentay in bartilmaameedyada Israa'iil ay aad u bataan. xaaladdu marka waa adag tahay oo runtii ma sahlana. intaa waxaa dheer madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa mid ka mid ah telefishinada dalkiisa ka soo baxa la hadlay waxa uu yidhi war dalkeenna Mareykanku weli dagaal ma gelin welina qorshaha nooma aha inaan la dagaalano dalka Iiraan. hase ahaatee lama qariibsan karo haddii aan tallaabo qaadno oo aan weerarada si rasmi ah ugu biirno. taasoo runtii muujinaysa in Mareykanka weli go'aan uusan qaadan dagaalka in uu galayo waa si toos ah inkastoo hadda si dadban uga jiro uu taageeraya nidaamka Israa'iil. intaa waxaa dheer golaha amniga sare ee dalka Pakistan ayaa maanta ku shiray magaalada Islamabad dood adag oo dhinacyo badan laga fiiriyey oo amniga qaranka waddanka Pakistan lagu xiray ayaa la soo hadal qaaday. Nawaz Sharif ra'iisul wasaaraha Pakistan waa nin hadalkiisa cad yahay oo waxba qarin. guddiga waxay leeyihiin dulqaadkii waa naga dhammaaday intaan kadibna lama sii fiirin kara xaaladda. haddii ay Iiraan u baahan tahay inaan garab istaagno cudud iyo ciidan ayaynu ku garab istaagi doonaa oo ma qarinayno dagaalkaasi in aan shab dhihi doonno oo aan si toos ah saaxadda dagaalka iyo fagaarahan u tegi doonno. shalay Pakistan waxa ay tiri mowqif ahaan in dagaalka ay taageersan tahay dhinacaasi iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan. dalalka Carabta ayay ugu baaqday wadamada Islaamka in la iska dhaafo aamusnaanta oo aamusitaan iyo hadal kooban oo la sheego uusan macno badan keenayn. oo la weeraray Syria la aamusay Yemen tallaabooyin laga qaaday sheeda laga eegtay qasa waxa aragtay lagu sameeyay il iyo eegma ay noqotay laakiin taa looguma dari karo ayay leeyihiin Iiraan waa inaan tallaabo qaadno. haddaba haddii quurada arrintan falanqaynaya ee telefishinka Jazeera ka muuqanaya waxay leeyihiin haddii dagaalka Iiraan ay dhinaca Pakistan ay beeriyaan oo ay halkaas soo galaan reer galbeedku waxay qaadi doonaan tallaabo degdeg ah oo xaaladda lagu qaboojinayo. sababtuna waxay tahay Iiraan 170 iyo aan yiraahdee Pakistan 172 madax oo nuclear ayay haysataa. 172 meel haddii ay nuclear ku dhufato xaaladdu ma sahlana. haddii dagaalkan uu sii socdana Pakistan waa saameynaya maadaama ay xuduud leeyihiin waddankan la yiraahdo Iiraan. sidaa daraaddeed waa in si degdeg ah loo raadiyo xalal diblomaasi ah reer galbeedkuna waa u jihaysan doonaan. laakiin wax kasta waxay ku xiran yihiin isbedelada iyo tallaabooyinka soo kordha ee dhinaca Iiraan iyo Pakistan ay qaadaan. haddii Mareykanku uu dagaalkan rukub yiraahdo shaki male Pakistan inay iman doonaan. aad baad u mahadsantihiin. tabintu waa socon doontaa. YouTube-ka subscribe saara muuqaalkana saaxiibadiin la wadaaga. soo dhawaada mar kale.